waxaan ku suganahay bannaanka hore ee maxkamadda ay ka socoto dacwadda askartii dishay George Floyd. waxaa mar qura isqabsaday sawaxan iyo dabaaldeg sababtoo ah waxaa dambiga lagu helay Derek Chauvin oo ah askari hore uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis kuna eedeysnaa dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah ayaa maanta lagu helay dhammaan dambiyadii lagu soo oogay. sidoo kale maanta waxaa la diiwaan geliyay taariikh cusub. waa markii ugu horeysay taariikhda gobolka Minnesota ay maxkamad dambi ku hesho askari cadaan ah oo loo haysto dilka qof madow ah. go'aanka xeerbeegtiga ka soo baxay kadib waxaa bannaanka maxkamadda ka bilowday dabaaldeg ay sameeyeen ehelka iyo taageerayaasha George Floyd iyo dad u dhaqdhaqaaqda xuquuqda bulshada madow. qareenka qoyska George Floyd ayaa sheegay in maanta ay u tahay maalin taariikh u ah dalka Mareykanka. intaas kadib waxaan makarafoonka la dhex maray bulshada Soomaalida ee ka soo qayb qaadatay mudaharaadkan. alxamdulilah xaqii adduunka baa annaga xaq baa maanta aragnay laakiin enough ma ahaan. weli waxaa jira 400 other cases oo furan oo aan waxba laga qaban, including Dalaal Ciid oo hadda la dilay, Isaac Adan and a number of other ones. So waa faraxsannahay laakiin it's still a long road to go. banaan bax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen George Floyd, runtii oo caalamka oo dhan iyo Mareykanka oo dhan maanta la sugayay lana filayay in runtii uu keesku si fiican u dhamaado oo la xukumo. xukunkiina waa lagu xukumay, dil baa lagu xukumay, 3 xukumo lagu soo rifaacay baa lagu xukumay. 12 qof ee juuriga maanta go'aankii soo saareen 12 saacadood markii ay wada tashanayeen inay xukunka soo saaraan. waa dareemaysaa maanta farxad baa ka socota. annagu hay'ad ahaan keer waxaan ka mid nahay ururadii isku tegay ee ka galay shaqadii in loo dagaalamo xuquuqda bini'aadanka, xuquuqda dadka muslimiinta iyo dadka kaleba. marka annagoo isla wada shaqaynayna ayaan sameynay mudaharaado badan iyo culays badan aan saaranay maxkamadda iyo dadka mas'uuliyiinta. annaga oo maanta ku faraxsan in maanta xukunka la soo ragay, waxaan kaloo rabnaa in runtii la bedelo shuruucda Mareykanka, gaar ahaan arrimaha laga qaban karo booliisku marka ay ku xadgudbaan dadka bini'aadanka. marka ilaa hadda wali lama hirgelin shuruudaasaan rabnaa in hadda la keeno. shuruuciyadaasna waxay u baahan yihiin in runtii ay noqon karaan shuruuciyo dib u dhiga ama runtii ka badbaadiya dadka. Assalamu alaikum, magacayga Umar Fatah, State Senator, District 62, South Minneapolis. aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta. Derek Chauvin found guilty on all 3 charges. Only the second officer in the history of Minnesota to be found guilty. But this is just the start. We're starting a movement here in Minnesota. Police officers will no longer kill people that look like us, the African Americans in the state. dhanka kale magaalada Minneapolis maalmihii la soo dhaafay oo ayaa wajahaysay cabsi dhanka amni darrada ah, waxaana magaalada lagu soo daadiyay ciidamada kaydka qaranka Mareykanka kuwaas oo sugayay amniga magaalada maadaama laga baqdin qabay in ay dhacdo boob lana gubo ganacsiyada magaalada sidii dhacday bishii May ee sanadkii 2020. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.